hawshaa ciidanka u baahan hawlgalkaa sameeyey marka alay abaara sagaalkii iyo barkii baa hawlgalkaasi dhacay ciidankaasoo la gudbinayo 5 nin iyo gaari iyo adigoo agab ciidan oo saaran ayaa lagu soo qabtay raacinta dibulka iyadoo sii koraya waa garta marka sidee lagu ogaaday marka raggan inay yihiin al-shabaab isla marhaantan u socdeen buraha galgala waa la dareensanaa adigu sirdoonka waa la hayay in argaab shalay ka soo ambabaxeen xalay habeenimana ay ka baxeen badan waa la hayay marka waana la dareensanaa xilligaa un bay noqotay in la qabto marka wixii isku dayay oo dagaalamayna dee waa dhintay oo ninkaasaa dhintay afartii kalena waa la qabtay waa gartay marka 5 qof ma hal gaari ay wada socdeen hal gaari bay wateen oo leeyda marka darawalkii ayaa ku jira ku jira waa gartay marka maxay tahay marka waxyaabaha idinkaga qorsheysan raggan ragga dilaamaha amniga oo qaabilsanaa baa la wareegay waa gartay marka ma markii ugu horeysay oo rag al-shabaab aad ku eedeynaysan ay dhinaca irgaaba ka yimaadaan ba iyagoo u socda dhinaca galgala aad qabataan markii koowaad iyo markii labaad midna maaha wax badan baa dhacday qabtay waa wadada ay ka yimaadaan meelaha ay soo maraan xagga markay beledweyne laga soo qaado say iyagu noo sheegeen ama dee waraysiga aan ku helay noo kale dee ma qarsan waxa ay yihiin burcay yimaadeen burca markay ka yimaadeenna waxay yimaadeen rigaabana meel walba qofbaa lagaga ballaminayay jooga oo sidaanba bixinayay oo hawshooda iyo qarashkooda qaabilsanaa waa garta marka Somaliland aad ba ay dhinaca amniga oo kale la sheegay in baraheeda controlada ay adag yihiin in qofka aanu si fudud ku gudbi karin marka sidee ugu suura gashay marka inay Somaliland ay ka soo gudbaan ama burca ay tagaan laakiin waxaa ila tahay kolley on qaraanteedu nawtaa ayna tahay waa saaxiibo marka isaga uga soo gudbaya waa gartay marka maxay idin sheegeen marka dhalinyaradan waxa ujeedkoodu waxa maxay idin kugu sheegeen ujeedkooda waxay sheegeen in halka ay socdeen beledweyne ka yimaadeen buurta geli lahaayeen xaggaana ay ka tirsanaayeen tababar soo qaateen waa gartay ugu dambeeyay 3 bilood meelahaas waa gartay marka hubka aad ku soo qabateen sidaa sheegtay maxay ka kooban yihiin hubka hubku waxaan hal qori laakiin hub ma ahayn wax laakiin agabkii ciidanka ahaayeen oo maxaa kamid kabo waa gartay marka Puntland dagaal bay kula jirtaa al-shabaab oo burleyda galgala qaarkoodna waxay si dhuumaalaysi ku galaan magaalooyinka waaweyn sida Boosaaso kale falal dilal iyo qaraxyaba ay ka geystaan marka gobolka Sanaagna maadaama inta badan hay'adaha amniga Puntland ay sheegaan in ay al-shabaabku ay marin ahaan u isticmaalaan arintaasi dawladda ma hor dhigteen si ciidamo ku filan gobolka u yeesho iyo waliba sirdoon u kuurgala xaaladaha dhaqdhaqaaqyada iyo waliba dadka halkan ka tilaabaya ciidanku waa ku filan waxa hadda ka jira iyo wax ma garanaysaa ammaan ahaan waa wax ku filan ciidanka meesha jooga marka waa ciidan amnigiisa ku filan marka meel kastana dee waa dawladdu waa ogta wax ka qarsoon maaha marka dee waana wax iska jira oo kolley Boosaaso ha noqoto meel kasta ha noqotee amni xumadani iyo qalqalgelintani waa wax jira laakiin maaha wax tabar iyo macnaha ciidan badan ee la soo kordhiyo u baahan waa garta marka ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad shacabka la wadaagayso shacabka waxaan la wadaagaynaa in wixii dhibaato ku wada ay nala wadaagaan ay soo sheegaan oo wixii ma garanaysaa ummaddu dib ku wada aanay guryahoodana ku qarsan ayana tala taabin